السلام عليكم أصحاب خالقة maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo sida taleefanka looga saaro Gmail-kaaga la socod wanaagsan. Haabay taleefan aad lahayn ama taleefankaaga ba hadaa ku kiciso Gmail-kaas waad ka saari kartaa adigoonan restore iyo waxba aadan u dirin taleefankaaga. Kaliya waxaa soo furaysaa Gmail-kaaga markaa soo furto sidan ayuu kugu soo baxayaa. waxaa ku dhufanaysaa qaybtaas kore ee calaamadda aan ku saaray. markaa ku dhufato sidan ayuu kugu soo baxaya. marka taleefankayga waxa ku kacsan laba Gmail, waa app group iyo Sultan AK. waxaan doonayaa inaad baxsho Sultan AK. waxaa ku dhufanaysaa saddexdaas dot. markii aad ku dhufato waxaa imaanaysaa qaybtan hoose setting ayaa ka dooranaysaa. kadib waxaa ku sii dhufanaysaa saddexdaas tick. kadib waxaa ku sii dhufanaysaa manage account. Google ayaa ku sii dhufanaysaa. kadib waxaad dooranaysaa ciwaanka aad rabtid inaad ka saarto taleefankaaga. markaad doorato saddexdaas tick ayaad ku dhufanaysaa. kadib remove waa kasaa ujeedid remove account ayaa leedahay. kadib remove ayaa leedahay. marka ciwaankan saas uga baxayaa. ciwaanka oo ka baxa kaliya waxaa ku haray ciwaanka kale oo laba ciwaan ay ahaayeen. marka inuu ciwaan ka baxaya soo hubinaynaa meeshaan ay ku dhufanaynaa haddii laba ciwaan halkan nooga kacsaneed Sultan AK iyo app group. marka u jeedin hadda app group kaliya ayaa ku haray oo Sultan AK oo ka baxay. qaabkaas fudud ayaan uga saari kartaa taleefankaaga Gmail-ka adigoonan wax restore ah iyo asaga dirin. waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusubtahay channelkayga subscribe saar. mahadsanid.